بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلام داود يا سود وهذا ورد دقدقة rag hubeysan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidanka beelweynta Ciise ayaa goordhow afar weerar oo kala duwan waxay ka fuliyeen banaanka tuulada Gaarisa iyo sidoo kale magaalada Ashcade xogahan helena waxay tilmaamayaan in ciidanka Ciise oo isu soo abaabulay oo Djibouti ka yimid ay dhowr jaha ka weerareen halkaasi ciidanka Somaliland ayaa cagtay ha ifurato ay ka dhacday waxaana jira dhimasho iyo dhaawac la gaarsiiyay ciidanka Somaliland waana markii ugu horeysay inta la xasuusto oo ciidanka Ciise ay weerar fool ka fool ah fulinayaan iyaga oo toos u beegsaday goobo ay ku sugnaayeen ciidanka Somaliland daawadayaal hore baan idin kugu sheegay inaysan rabin in heshiis iyo wada hadal lagu soo dhameeyo xiisada gobolka ka taagan badalkeeda reer Somaliland waxay rabaan in Ciise ay Samaroonka ay madaxa isu geliyaan tuulada dixda Sheekh Awaarana waxaa la sheegay in goordhow lagu afduubtay gaadiid ay lahaayeen beelweynta Samaroon xogahan helena waxay tilmaamayaan in ay afduubteen ciidanka Somaliland balse lagu eedeeyay ciidanka Ciise wararkii ugu dambeeyay amurta ku saabsan baan ku soo gudbinaya muuqaalka Lexar si uu meel fog u gaaro soo dhawaada saaxiibayaal horta waad ogtihiin magaalooyinka Ashcade iyo sidoo kale Gaarisa waxa ka dhacay dagaalo rabshado dad baa la dilay dad baa la dhaawacay dhibaatadaas oo dhan min cinda fidnakum waxa ka dambeeyay waa Somaliland dadka la dilay dadka la dhaawacay dadka la jir dilay dadka la dhibaateeyay maskaxdaada aqligaaga diidaysa muuqaal waxaan arkay aad iyo aad aan ula yaab runtii oo de yaani markii aan arkay dhowr jeer oo kala duwan muuqaalka aan daawaday waxaan arkay askar ka tirsan ciidanka Somaliland fiiri warkayga si fiican u dhageysta askar ka tirsan ciidanka Somaliland oo ku hubeysan qoryaha durunduuriga u dhaca waa saddex askari mid wuxuu saaran yahay gaari Cabdi Bilaah oo qori dhashiika oo ku xiran yahay midna wuxuu wataa qori AK47 ah oo khasnad ay ku jirto midna wuxuu wataa qori shanshuutara okay waxa wax walba ay ugu daran marka ninka gaariga Cabdi Bilaah saaran intuu gaandhariga qabsaday buu wuxuu qoriga u furayaa sidii inuu cadow la dagaalamay يعني ستلانتلو قرية الشيكها وفريا ضد كسونا تولد جارسة وحان السويدية ونك يولا دجاليا وحبدوا كل ذي وقف شعب عنه بيستين هدي أهربتي إنا قف للدجاش أو دجال حيسا وقفتي عيسو ماشي جوجان ولا يقنايات سمرونكم ماشي جوجان ولا يقنايات لكن قف شعب أو ماتيا هو أورله المعرورة أو أنكعي سعون كرين waayeel jiif ah ina inta xabad la dul tagtay sidii baaskii si roob da ay aad u furtid wax aqliga gali kari waayo noqon waayo waxaan isir marka wareesha Isxaaq ma in ay laayaan Ciisaha loogu talagalay teemniyo waxaan markii aad baartid oo aad fiirisid maskaxdeena markii aad ka shaqaysiisid waxaan isweydiiyay halkay wax ka qaldan yihiin maxaa jira maxaa qaldan sidee wax u jiraan waxaan isweydiiyo kale hadiiba ay sidaan tahay xaaladdu oo jawigu uu sidaan yahay maxay tahay dhibaatada maalin walba soo laabatay aan arkayno Ciise kaliya loogu talagalay Soomaalida waxay ku mahdaa dheriga kuleelka waxa ka keenay waa dabka Ciise waxaan moodaa marka inay kululaadeen aad u kululaadeen hadda ay diyaar u yihiin iska ciliyaan ciidanka Somaliland maanta marka tuulada Gaarisa banaankeeda weerar kooban baa ka dhacay goob ay joogeen ciidamada ka tirsan Somaliland oo saraakiil u badan ayaa la weeraray waxyeelada khasaare dhimasho iyo dhaawac ilaa hadda lama xaqiijin laakiin baaritaan baan wadnaa oo ku saabsan sidee wax u dhaceen waxay wararka iyo macluumaadku tilmaamayaan haddaba in ciidanka Ciisuhu iyaga oo arrinkaasi ka carooday dartood ay weerar fuliyeen kadibna ciidanka Somaliland waxyeelo xoog leh ay soo gaartay afar sargaal oo sarsaro oo maamulka Somaliland ah waxay warbaahinta u sheegeen in ay aar gudan doonaan isla markaana ay qaadi doonaan weerar culus laakiin arrinta la yaab kale waxay tahay waxa soo socda iyo webi yaaweyn Somaliland marmarsiyo waxay wadaa ay dadkaasi ku leeso wallahi insan wax kala wadin marmarsiyo waxay wadaa ay dadkaasi ku leeso Ciise marka iyaga waxa laga rabaa in ay banaanka iskeenaan oo hadii ay ragaasi la dagaalamayaan ay iska ciliyaan hadii ay sarraga la dagaalamay karina ay meel cilla
ay banaanka ka istaagaan laakiin xogtii ugu dambeysay oo aan helayna waxay tilmaamaysaa in maalinba maalinka ka dambeeya ay xaaladu gaartay meel aan waxba laga qaban karin 2 sargaal ilaa 3 sargaal oo maamulka Somaliland ka tirsan ayaa warbaahinta waxay la wadaageen xogo dhameystiran oo ku saabsan in maalinba maalinka ka dambeeya la arkayo isku dhacyo ciidan oo xaaladda faraha uga sii bixinaya kuwaas oo dad badan ay aaminsan yihiin inay xaaladda gaarsiiyaan meel aan waxba laga qaban karin waa arki doonaa laakiin xogihii ugu dambeeyay ee la helayo waxay tilmaamayaan in xaaladdu hadda ay gaartay meel aad u adag dagaalo foolka fool ah oo soo laabtayna ay dhici doonaan laakiin arinta ugu weyn ee la arki doono maalmaha soo aadana la arki doona waxay noqon doontaa sida ay Somaliland u maareyso xaaladda gobolka oo ay dad badan aaminsan yihiin inay gaartay meeshii ugu adkeyd oo ah in ay Somaliland adeegsanayso awood ka baxsan awoodihii sharciga uu siiyay 2 sargaal oo militariga Somaliland ka tirsan warbaahinta sidoo kale waxay la wadaageen aragti la xiriirta in loo baahan yahay in aqliga iyo miyirku uu shaqeeyo isla markaana meel la iska dhigo wax walba oo dhibaato oo loo arko inay caqabad ku yihiin xasiloonida laakiin ugaaska guud ee beelaha Ciise ayaa xataa dhowr mar oo kala duwan warbaahinta wuxuu la wadaagay qorshayaashooda ay hadda wadaan soo dhawaada saaxiibayaal sharaf iyo karaamo